السلام عليكم شبكة ورحمة قمم الله تعالى إعلامية. وبركاته وولالكينا عبد الرزاق بن جارلس maantana waxaan ka hadlaynaa afar qodob aad ku gaari kartid guusha شبكة قمم إعلامية. مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك. ugu horeyntii afarta qodob waxaa ugu horeeya kow himilo cad waa inaad samaysato qodobo cad oo aad tiigsanayso si aad guusha u gaartid. qodobka labaad go'aan qaadasho waa inay ahaato go'aamada aad qaadanayso kuwa laga run sheego ee kaa go'an tahay fulintooda. go'aan aad ka shakisay weligaa ha qaadan ee ka fiirso go'aamada aad qaadanayso. qodobka saddexaad dulqaadka waa habka keliya ee lagu gudbi karo caqabadaha kaa hor yimaada inta aad waddada guusha ku jirto. qodobka afraad ka faa'iidaysiga waqtiga waa inuu qofka yaqaano qaabka uu waqtigiisa ugu faa'iidaysan karo gaaridda yoolkiisa. waa inaad waqtigaaga u taqaano shay qaali ah oo Allah subxaanahu wa tacaala kuu siiyey. sida saxda ah waa inaad waqtigaaga ka faa'iidaysato oo aad ka dhigto ra'sul maal oo aad ka faa'iidaysato sababna u noqda guulaha aad gaartid. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena. waxaan rajaynayaa wax badan inay kaaga baxeen muddada aad daawanaysay. fadlan subscribe saar barteena youtube-ka SYC Media. mahadsanid tan iyo kulanti dambe.